Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceerigaabo ku kala diray qaybtii koobaad ee agabka iyo shaqaalaha ka howlgali doona jiidaha fogfog ee goobaha codbixinta ee gobolka Sanaag waxaana munaasabadii lagu kala diraya howlwadanadan iyo gaadiidkan sida sanaaduuqda codbixinta ugu horeyn baa ka hadlay Komishanar Cabdifataax Ibrahim Xasan iyo gudoomiyaha komishanka degmada Ceerigaabo Shamcaan Cabdiraxmaan Jaamac waxaan ku suganahay xarinta komishanka doorashooyinka عاصمة goboleedka gobolka Sanaag ee Ceerigaabo oo ay maanta inooga bilaabmeen wajigii koowaad ee kala dirida sanaaduuqda goobaha kamida gobolkan Sanaag gaar ahaan degmadan Ceerigaabo goobo kamida waynu maanta ka sii hawlgalaynay si ay u sii anbabaxaan jidka order daraadeed hawshaas waxa rarmay qaybo kamida goobahaasi oo hadda anbabaxay 12 bisha oo berriyana guud ahaan ay naga wada dhamaystirmi doonaan dhammaan goobaha gobolka Sanaag oo dhan oo ku jirto degmooyinkeeda Ceel Afweyn Garadag Baran iyo degmada Ceerigaabo ama gobol doorashada Sanaag insha Allah ay naga wada dhamaystirmi doonto in la imakana si habsamiya ay noogu socoto hawshaasi waxaan rajaynaynaa in ardayda sideen mar walba ku celinaynay ka howlgalayay goobahaasi ay yihiin arday u carbisan وهولودناس وعربيسان لغونو احترامو هawsha ay qabanayaan sidoo kalena looga fadhiyo cid kasto marti loo yahay milgihii ay lahayd inaan wax aga jogleen lagu sameyn inaan la isku dayn wax musuqmaasuq in ardayda lagu baro in kasto aanaydi kaba yeelahayn sida aanu aad u hubno ay kuna tababaran yihiin kuna soo dhaarteen waxaanu rajeynaa biidnillaahi kariim in hawshaasi si hufan guud ahaan ay uga soo dhamaato gobolkan maanta sidoo komishaneerku idin sheegay waxaan bilaabnay jawigii koowaad ee kala dirista goobaha fogfog kuwaas oo aan u kala qaybinay plan B inay aroorta hore u baxaan qaarna gelin ka dambe baxaan sida u kala baxayaan ay tahay goobaha fogfog oo hadda diplomakoodii noo socdo qaarkoodna noo hadheen oo ay ka mid yihiin goobaha xeebaha ee durugsan ee carqaladaha gaadiid ee wado ay ku xiran yihiin kuwaas oo aan maanta dhammaan insha Allah kuwa fogfog aan soo gabagabayn doono waxayna nagu socotaa jawi degan oo hufan oo hagaagsan oo ay goobjoog ka yihiin dhammaan cidii shaqada ku lahayd Yusuf Cabdi Xasan Cade telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo